وكحكسين يا لما قول النبي محمد الخيامي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قبائل باويمي waxay yidhaahdeen diintaanu rabnaa inaanu si fiican u baranno waa kaase waxoogaa nugu dar raggaaga ah 10 saxaabiyo rag waaweyn ay ku jiraan buu ku daray 10kii saxaabi inta meel cidlaa lala tegay ayaa dhagta dhiigga loo daray ala bareey qabiilooyin unbaa isugu yeedhay oo waxa la yidhi intan baynu ka haynaa raggii la yidhaga dilay hebel iyo hebel aan uga aarun baa la yidhi 10kii ay nabiga ka soo kaxeeyeen 10kiiba way dileen 8 7 macrakaday markii hore ku dileen isdiiba bay saddex ilaahay way idin deyninayo markay isdiibeen bay xadhiga u adkeeyeen mid baa diiday oo kiin labadii soo haray na quraysh bay ka iibiyeen oo yiraahdeen waa tii berigii badar wax la idin kaga laayay ya abihi wa arayo anu saxaabiye ka iibinaa bay yiraahdeen laba quraysh kamid ah ayay ka iibiyeen oo yiraahdeen anagana waxoogaa nasiya kuwana abayaashin ugu aara dhacdadaasi markay dhacday labadii quraysh laga iibiyay mid kamid oo xidhan ayaa markii la dilay wuxuu yiri muusa la siiyo muusku waa baalka lagu xirxirto shaving material waxa lagu shave garaysto waa la siiyay muuskii yaraa isagoo haya kuwii dilayay ilmo yar ay dhaleen baa u yimi oo dhabta ka soo fuulay gabadhii ilmaha yar dhashay baa gargariirtay markaas iyo naxday de ninkii ay dilayeen dilka ugu xidhnaayo midi yarna haysta ayaa ilmaheedina uu dhabta ka fuulay dabeetana wuxuu arkay wuxuu ku yidhi waxba ha cabsoonin ma kuntu li afcala hada ma inaan dilaabaad ka baqatay buu yidhi ha ka cabsoonin inaan kan dilo waxay yidhahdaan culimmadu qisadan waxaa laga faa'iidayaa الوفاء بالعهود حتى ككو خياميين أنا الخيامين كو خيامية صاحي ده إيبيي إن أنا المعرورة يدلين لودلين المعرورة ويدلين يبوا كو يدل يهدوا محير يركضون ولانا يعني ناظرين إسلام كما يغنى ولذلك بس حابي كان يسوق الدلو حدا والله الربعين للدلو والمهود يرى وكسو عرّي ونفتي سكون عايسوق مدها يستا markay islaantii garirtay wuxuu ku yiri ma kuntu li af'ala hada ha malaynin inaan waxa sameyn kara anigu ma sameynayo qisada labadan tilmaamaya waxay tahay iyadoo nabiga taasi ku dhacday ayaa hadana qolo kale u timo waxay dhaahdeen kuwii daliya qaran niman la yiraahdo bay haayeen iyo bani lixyaan nimankii la oran jiray reer hudayla qolo kale u yimi nabiga oo raacliya dakwaan la yiraahdo waxay yiraahdeen annagana bal cidna lagu daro diintu kama foga gaarkayga waa la aqbalayaa 7 buu nabigu iyagana ku daray masaladani maxay tilmaamaysaa waa la laynayaa dadka inaan dacwo loo joojin inaan diin la faafiyo waana la laynayaa inaan looga baqin waayo 10 hore uu diray nabigu in la dilo ogaa haddana markii la yidhi dacwaan wali u baahanay 7 buu diraya taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa in diinta la faafiyo in loo aqbalo khatar kasta inuu qofku aqbalo inuu ilaahay dartii u dhinto maadaama uu faafinayo maxay ilaahay kalimaadkiisa subxaanahu wa tacaala maadaama uu dad diin ugu yeedhayo walidaalika buu nabigu ma odhan war horaa 10 la iga dilay cidanba bixin maayo wuxuu tafaafiyaan balliquu canii walow aaya buu taagnaa waraayada ha noqotay dadka hal iga gaarsiiyo markaasuu nabigu yiri 7 kala siiyay kuwa kana qoladanina 7kii bay ka haysteen meel dhexe markay marayeen bay qabaa'il u heshiiyeen dabeetana nimankan allaynay baa la yiri ninkii waraaqda siday nabigu uu soo dhiibay qolada madaxda loogu dhiibay isagoo meesha fadhiya midintu xagga dambe iska soo taagay waran galiyay waa la dilay 7kana waa la dilay maxaan mas'alada tan u soo qaadanaya labadan mas'alo rajiic iyo mauna waxaan soo qaadanayaa hal shay inaan ogaano oo aqeedada islaamiga ku saabsan waa mas'alada ah غيبك إن إلهي ونوجي سبحانه وتعالى نبينا أنتي لو وحيدو قرينو وجا
دون نبي محمد غيب كوجي لما قور لما دلين رجيس دو غيب كوجي هاي محي لما دلين ولذلك بقى إلهي القرآن سودة شيء ولاي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا نبي محمد ودتك واحد كنت هذا ورا نقول الله فهيق ومهنته واحتر إيا وحي الله تونا إلا ما شاء الله موياني إلهي وحدونا موياني ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وحتى هذا بقى إلهي إلهي هدان غيب كأوجهي خير كمان بتصلها شر ودم ونقول لهذه دون نبي غيب كأوجي ما شربه هليل لا وين وشرا وند شر ماشو كصوص عدا وين ودين عكلا كمرة ولذلك بقى إلهي وحيلي وحتى هذا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء غيب هدان أوجهي خير كنوان بتصلها بنا إما هلاشين دبا إلهي سبحانه وتعالى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون واحد كنت هذا ورنا شقضيده وإن اندقه وبشاريه دد إلهي الرومينية مسائل كان صلوات الله وسلامه عليه بلبو نبغو هبارتمي صحابة اللي قال لي درادي هل بلا أي صلاة كستقنودي سقى هبار يلا ودي قبيل مو هبارتمني وسكع علين لها مركه هرو رجي سكع عشان لها دوقي هاي محي غيبك إذن لبضن دقال وحانو سوقاتي يغنى وحي دعان وقتكي مسلمين تلا ويرريي وحانو سوقاتي لبا الشيء مدوائنا دعوة إسلامي أن لو تشوشنين والستيليا أما والله دمانيا وحال الربا وين إلهي درتي لوردنتو إلهي درتي ودمشادو ما هم يلو قد دقال لما يونونات كل دماتو وين الدماتو أدقو إلهي كتاب كي سدتك قارسينيا سيدا أوجد بو صحابي ورنك اللي لها فزت ورب الكعبة بيقولي حبيسكم بدك على بين ورغدي النبي قصدي مركي ورنك اللي بيقولي فزت ورب الكعبة وأقول استي إله كعبة أبو ريما كل دارته أما ربك كعبة لما كل دارته وأقول استي بولي إن لورد انتو وقارسين تي ده خطر كستلو قلبت المامسة طلبنا وحايت المامسة عقيدة الصحيحين يتهي نبي محمد وحو أجاؤون وحي إلهي وحيودي قرآن الله وشاقي وحي الله سوى وحيودي قرآن يا حديث الله وحيودي بوغا أما غيبك كلا عدي موغا غيبك عدي موغا ولذلك بقى إلهي سبحانه وتعالى درس نظريا ولا سيئ وأقول لا يعلم الغيب إلا الله ودرس نظريا مت براكتيكال أنا والله ينتصاء iyadoo raggiisii marna toban la dilayo marna toddobaatan la dilayo oo aanu midnaba waxba ka ogeyn bal qoladii tobanka ahayd hore markii la qabqabanaya la dilayay ayay ilaahay bariyeen subhanahu wa ta'ala waxay ilaahay ka bariyeen allahumma balligh anna nabiyana baydadeen ilaahay waxaad warkayga gaarsiisaa nabigi inaanu kula kulannay oo aad raali naga noqotay ilaahu warkayga nabi maxamed gaar حديث صحيح مسلم بكيالا مركز إلهي نبي قوة حيوضا الله شاقي طبعا كان لنا هراء إلا اللايي مركز الله شاقي عضل يقى قلدا كلا ننقرا كبحصدي وحكا بحصدي يقرا سحابي سقو مركز مقنا دبتنا لونطي وكعرري غزوة الصدحات أنت المامكرة وغزوة المريسيع iyada wax badan ka oran maayo xadiisada lifkigeedana horaan uga waramay waa ka talaabaya waqtigaas ka cidhiidhiya waxaan ku gabagabeynayaa dagaalkii axzaab waa dagaal inta badan aan gacan la isula tagin magaca axzaabtu waa dagaalkii kooxaha waa dagaalkii xilfiga dad baa soo heshiiyay in muslimiinta iyo madiina gunta laga jaro gabigeedaba in gunta laga jaro oo halkeeda loogu tago waxa soo heshiiyay quraysh oo cadawgii ugu weynaa muslimiintu ay lahaayeen waxa kale oo la soo heshiiyay soo raacay Ghatafaan oo niman la yiri madiina timirteedii iyo xoolaheedana waa idin siinayna hadda nimankan la soo dabar gooyaa oo quraysh ba ka ciidan badan أفركون ونن وطا لبدا عيدا مقالة الدشة دي سود دقين مسلمين تنا خبرات كودي
ay ka faa'iidaysteen ninkii Persianka ee muslimka ahaa Salman al-Farisi siday culimada taariikh sheegaan ayaa wuxuu keenay fikradda ah in god la isku wareejiyo carabtu dagaal godeed ma bay aqoonin waayo meel dawladba ka jirta bay qabiil ku duulabay iyagu yaqaaneen qabiil ku dawlaana de fardaha iyo awrta intuu fuulo ayuu boo oran jiray reer hebel guntaanu ka soo jarro gabay ka tiri jiray markaa laakiin de ciidamo sidii military dhufaysay isu galo laakiin waxay yaqaanay labadii dawladooda waaweyn ee dagaaladu dhex mari jireen oo Persia de dawlad weyn oo sida u dhisan bay ahaayeen saxaabigan Salman al-Farisi waa nin Persiana yiji magaalo la yiraahdo baan filayaa inay meeshu ka yimahay Salman al-Farisi oo reer Isbahana oo muslima ayaa khitadi tilmaamay in god hoos dhowr iyo 10 baaca ama dhowr iyo 10 yani in badan hoos loo qodayo dhankaana 40 diraaca hoosna 10 diraac baan filayaa dhankaana 40 diraac waa inta 40 dhudhun sida yani god aan faras ka boodi karin waxa lagu talagalay fardu markay soo cararaan inaanu farasku ka boodi karin muslimiintii waxa soo ciidan markay soo dul fadhiisteen gudaha qoladii la joogtayna heshiis baa la galo iyana ballankii bay ka baxeen nabiga ay kula jireen yahuud ahayd iyana kacdoon bay gudaha ka sameeyeen kor iyo kalba waa lagaga yimi dagaalkani wuxuu yiraahdaan wuxuu ahaa harbil asaab dagaal dadku nervous uu noqdo baqihi uu ka tira batay waqtigay dadku sida u baqayeen nabigu khitadu isticmaalay waxay inuu dajiyo idan dadka culimada iyo dadka ducaada ah marka fitanka iyo mashaakilku bacaan haday iyagu dadka hor cararaan oo yaacaan inta wax garadka haday dadka hor cararto dadku u jabaya